كييف كدن عدلاء كليكما أهن مانتا جهادكي iyo kaliishii cidla ahayd waxay ka helaysaa deyr adag marka la fiiriyo fariimaha isdaba joogga ah ee baritaarka u muuqda ee ka imaanaya dunida galbeedka oo Mareykanka ugu tunka weyn yahay madaxweynaha waddanka Mareykanka waxa uu mar kale qiray sida Mareykanka iyo xulafadiisu ay diyaar ugu yihiin inay barbar istaag heela leh u muujiyaan Kiev oo dagaal adag kala hortagaysa xuduudda weyn ee Moscow madaxweynaha waddanka Mareykanka oo warbaahinta kula hadlay aqalka cad ayaa mar kale banaanka keenay sida maamulkiisa iyo xulafada Mareykanku ay diyaar ugu yihiin inay wadaan taageerada iyo maalgelinta muuqata ee maamulka Kiev oo wajahaysa awood muuqata oo ka imaanaysa Moscow. Good morning. I just signed a request to the Congress for critical security, economic, and humanitarian assistance to help Ukraine continue to counter Putin's aggression and at a very pivotal moment. We need this bill to support Ukraine in this fight for freedom, and our NATO allies, our EU partners, they're going to pay their fair share of the cost as well, but we have to do this. We have to do our part as well, leading the alliance. The cost of this fight it's not cheap, but caving to aggression is going to be more costly if we allow it to happen. We either back the Ukrainian people as they defend their country, or we stand by as the Russians continue their atrocities and aggression in Ukraine. Every day the Ukrainians pay for the price they pay for their lives for this fight. waaxda gaashaandhigga Mareykanka waxay ku eedeysay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inuu gudaha dalka Ukraine ka geysanayo musuqmaasuq dhanka akhlaaqda ah oo ay ciidamadiisa ka wadaan dalkaas. afayeen u hadlay waaxda gaashaandhigga waddanka Mareykanka ayaa yiri muxuu yahay anshaxa u ogolaanaya Ruushka in uu qiil ugu raadiyo tacadiyada uu geystay. dhinaca kale war ka soo baxay Kiev waxa ay muujinaysaa in madaxweynaha waddanka Ukraine uu wali diyaar u yahay inuu wada hadal nabadeed la yeesho dhigiisa Putin balse wuxuu ka digay in wada hadallada ay burburi karaan maadaama uu Ruushku sii wada duulaankiisa. hogaamiyaha Ukraine wuxuu intaa ku daray inuu doonayo inuu la kulmo madaxweynaha Ruushka wuxuu sheegay in burburka ay ciidamada Ruushka kaga tageen deegaanadii ay qabsteen ay wiiqayso saameyntii la filay inuu ka dhasho wada hadal kasta oo dhex mara labada dal. Ruushka ayaa xaqiijiyay in ciidamadooda ay weerar dhanka cirka ah ku qaadeen caasimadda Ukraine xilli uu dalka Ukraine booqasho ku joogay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa sheegtay inay heegan gelisay hubka ridada dheer si loogu beegsado warshadaha gantaalada ee Kiev.